December oo maalintaas 25 hadii laga saaro 10 maalmood ka harsan tahay buu leeyahay waxa dhacaysa doorashadii golaha deegaanka ee gobolka Banaadir ma qorax joognima ma doqonnimo kala ma ogiye isma weydiinayaan 25 December doorashada kama ka dhici kartaa yani wuxuu sheegay uu ku daray hadalkiisa inay ka soo qayb galayaan korjoogayaal caalami ah يعني طبعا reer galbeedkii baa loo jeedaa dimuqraadiyadda muxuu ahayd riixi jiray laakiin 25 December maalin ay shaqeeyaan horta mada xasan iyo muungab isma weydiinayaan 25 December nimanka reer galbeedka waxay ula mid tahay maalinka ciidul fitr ay ula mid tahay yani waa maalin muxuu ahayd diimeeday iyaga u tahay annagu hadda dhalashadii muxuu ahayd nabi maxamed iyo dadkeenu aad uguma buunbuuniyeen laakiin yani ciid ahaan iyaga maalinka Christmas Day la yiraahdo waxay ula mid tahay maalin ciidul fitr soddon beri adigoo soo soonaa oo caruurtaadii iyo maaxootay xaaskaaga iyo ila la ciida ay tahay qolo kale waqti ma gelin maya waxa weeye marka wuxuu inay been yihiin halkaas ka dareemaysa waaye doorashadan leeyahay waxay dhacaysaa 10 maalmood ka bacdi horta dadka codeynaya maxay leeyihiin nin kale odaya oo muxuu ahayd ummadda runta u sheegay bal aynu daawano dhowr second waxaa la yiri kaararka la qaybiyay waa 16,000 dadka isdiiwaan galiyeen waa 923 ku dhawaad marka xisaabta sameeysid macnaheedu waxa waaye 1.7 waxa waaye boqolkiiba 2 qofood ayaa ogolaatay 2 qofood wax ka yar ayaa ogolaatay inay doorashada ka qayb galaan boqolkiiba 98 qofood oo degan magaalada Muqdisho way diideen waayahay wuxuu sheegay in dadka la diiwaan galiyay oo Muqdisho laga diiwaan galiyay markii hore ay ahayd 923 ayna kaararka qaateen 16 taas oo ka dhigan 1.6 boqolkiiba yani 1.6 weeyaan boqolkiiba 1.6 marka la yiraahdo imisa hartay waxaa hartay ugu yaraan 98.4 ilaa 3 haddii la yiraahdo 1.7 waxa weeye 98.3 baa harsan 1.6 hadii noqoto waxa weeye sidaas oo kale waa 98.4 waayahay marka horeba Muqdisho waxa la yiraahdaa 4 milyan ku nool waxa la diiwaan galiyay rubuc kamid ah dadka xoog iyo xeeladba sababtoo ah waxa weeye 4 milyan marka milyan laga gooyo kuwan waa milyan ku dhawaad waxa weeye waa 4 meelood oo meel waa rubuc 25 boqolkii 25 boqolkiigaas marka 75 boqolkii ayaan marka horeba aysan suurta gelin in la diiwaan geliyo haddaynu niraa waxa ku jira 75 boqolkiiba harsan waxa ku jira ugu yaraan caruur aan codeyn karin 25 boqolkiiba ka dhigaynaa caruurta u dhaxaysa 0 ilaa 18 sano marka waxaynu leenahay 25 boqolkiina ka sii gooyo dadaan waxay codeyn karin oo shuruuda buuxin karin weeye waxay ku tusinaysaa marka 50% dadka codeyn kara ee Muqdisho ayaan awalba la diiwaan gelin oo diiday inay isdiiwaan geliyaan ayna suurtagal weysay xoog in lagu diiwaan geliyo waayo rubcii muxuu ahaa la diiwaan geliyana waxaa la yiri 98.3 ama 4 waxay muxuu ahayd diideen kaararka inay qaataan haddaba dadka maxoolaa la moodaa yaa codeynaya doorashada dhacaysa 10 maalmood ka bacdi cidda codeynaysa yay tahay warnimo meelaan aqli lahayn alaysa minkum rajulun rashiid adduunyada 51 boqolkiiba wixii ay diidaan waa la tuuraa shuruuc badan oo yani articles la bedelaa adduunyada oo la yiraahdaa okay dadka intiisa badan waxaan diidaa ma rabno bal ilaahan kugu dhaariyay 98.3 boqolkiiba dadka la diiwaan galiyay hadday diideen inay kaararka qaataan taas macnaheedu miyaysan ahayn xasan iyo kooxdiisa waxaad wadaan baanu oo cad miyaysan ahayn taas inay ku qoos qaataan siyaasiga intaan la gaarin soo maahin hadii caqli leeyihiin caqli ma jiro oo waa doqomo ama waxa weeye khaainimada intay ka baata xishood ka tago inay been sheegayaan way ogi labaas bay mid tahay waayahay nimankani microphone-kaas bay hadda uga soo hartay jamcihii waxaan arkay Xasan Maxamuud oo intuu aaminka isugu qabi waayay ama ku kalsoonaan waayay qaaqlayaashii uu soo dirsaday baryahan madaxweyne farmaajo ka caayay muxuu ahayd media oo kamid yahay muungab oo kamid yahay xaadooli isaguna markaan soo istaagay
oo leh haa waxaa la laayay hadda ka hor nimanka siyaasiyiinta waxaa nin ka mid a waa la weerar bal horta aynu daawadno waaba muxuu ahaytay 22 sakine balse ila daawad yaa waaye siyaasiga gurigiisa loogu tagay siyaasiga gurigiisa inta loogu tagay laga soo xiray ama inta loogu tagay lagu xabadeeyay lagu ammaan dareeyay yaa waaye annagoo og oo shalay tahay oo saaxiibadeena siyaasiyiinta maanta jooga qaarkood ay tahay guryahooda inta la tago oo wiil lagu laayo wiilashii xataa maanta hooyooyinkood meel ku duugan yihiin aanay aqoonin waayahay waxaan leeyahay odaga xasana ma waxaa ku dhacay cudurka hilmaanka dameeshii miyuu qabaa war xasan markaad soo qaadanaysid 4 sano 5 sano ka hor dhacdaas dhacday oo wiilashaas ay ku dhinteen shilka ahayd miyaadan xusuusan cabdiraxmaan cabdishakuurka aad ku beerlaxawsanayso yaa hadda adiga gurigaaga kugu weerara waa tii wiilashii la duugo waalidiintii ay xataa weli aysan ogeyn markaad leedahay 6 kaloo cabdiraxmaan adeer u yahay inaad tarabuunka ku dishay ama wuxuu ahaatay meeshii dhihi jira barxaddii horseed miyaad hilmaantay miyaadan ogeyn farmaajo hanti kamaba dhicayna adigoo hantidoodii dhacaya oo dhulkii ay ku noolaayeen ka barakicinaya maca waalidiinta aad sheegtay inaad ku dumisay cooshadii ay deganaayeen miyaad hilmaantay sidoo kale haddii aan siyaasiyiinta guryaha lagu weerarin ma waxaad ka wadaa waxaa lagu weerari karaa jidadka miyaadan ahayn ninkii baazuukayaasha ku garaacay iyagoo taagan santarkii magaalada oo xataa shacabka u nixi waayay saldhiggii rigley miyaad hilmaantay xasanow ma cudurka hilmaankaa kugu dhacay waay aad muxuu ahaytay isu berri yeelaysaa shalaad muxuu ahaytay baasuu ku garaacaysay iyagoo magaalada dhex maraya maanta waxaa waye siyaasiyiintii guryahoodii ku xiran yihiin sababtoo hadday bannaan kusoo baxeen dafec ku dhufatay ka baqayaan waxaa weeye waxaas wax kaa saaraya ma ahe waxaan leeyahay xasanow dib u xusuuso waxyaabahaad ugu adgeysatay ugu dambayn nimanka la yidhahda samata bixinta xalay shir bay qaateen shirkaasna waxaa markaasi ay uga hadlayeen shirka kismaayo waxaana la go'aansaday sida in xogta ku hela 17 bisha in magaalada kismaayo la isugu tago oo kulankii muxuu ahaytay madasha iyo puntland iyo muxuu ahaytay jubbaland oo halkaas ka dhaco sidoo kale waxaa baaqday shirkii nabad sugidda kenya nimankani hadda waxaa weeye way ka insaxaabeen gadaalay uga laabteen kadib markii madaxweyne farmaajo shirkaasi uu diiday bay fahmeen in fadeexad ay ku tahay inay sirdoonka kenya hoos tagaan laakiin iyagu garashadooda يعني كومي ديدين هدي فرماجة واتجي ليه راوي تجي لهاي طبعا كينيا ندبي أقول لك يعني شركة ميجوجين مركز أي تيجي دونان كسبايل حكي صباحنا وين أركض دونا هذا وبلا توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.